assalaamu calaykum walaalaha ku xiran janaalkayga. allah wuxuu ka dhigay bini'aadamka rag iyo dumar, wuxuuna ka dhigay guurka wada nolosha ay baaqi ku sii ahaato nolosha bini'aadamka. guurka waa sunnada nebiyada iyo dadkii wanaagsanaa. wuxuu allah ku koobay nebi moxamed inuu u oggolaaday xaasas badan oo ka badan tahay tiradooda 4 xaas, waxaana guur walba uu guursaday nebigeenna moxamed sallallahu calayhi wasallam ku jirtay xikmad rabbaani ah. wuxuuna ahaa guurkiisii ugu horreeyey intaan la soo saarin ka hor guurkii uu guursaday khadiija bintu khuwayl. khadiija waxay la nooleed nebiga islaamka ka hor iyo islaamka kadibba. khadiija waxay ahayd allaha ka raali noqdee tan ugu khayrka badan xaasaska nebiga uguna baarisan. nebiga jaceylka khadiijo wuxuu qalbigiisa ku haayay intay la nooleed iyo markay geeriyootay intaba. muxuu ahaa wixii ku kalifay khadiija inay ka dalbato nebiga inuu guursado, siduuna u dhacay guurkaas sharafta badnaa? haddaba waxaad kaga bogan doontaa muuqaalkan ee dhammaysa ilaa iyo dhammaadka. waxay ahayd khadiija bintu khuwaylad ibnu asad ibnu cabdilcuza ibnu qusay al-qurayshiya al-asadiya. hooyadeedna khadiijo waxay ahayd faadumata bintu zaa'idah bintu jundum. khadiijo allaha ka raali noqday waxay ku dhalatay makka al-mukarrama. khadiijo gurigeedana wuxuu ahaa guryaha ugu sharafta badan quraysh, nasabkeedana wuxuu ahaa nasabka ugu sharafta badan quraysh. khadiijo waxay caan ku ahayd dabeecad wanaagsan, waxayna dumarka kale ooga socneed caqliga, waxayna ahayd haweenay dhowrsan, sidoo kale waxay ahayd muslimiinta hooyadood. khadiijo waxay ahayd xaaskii nebiga, abtirkeeda iyo abtirka nebigana waxay ku kulmayeen awowga 5aad. khadiijo waxay ahayd mid guursatay intay guursanin nebiga ka hor 2 mar. guurkeedii koowaad wuxuu ahaa catiiq ibnu caa'idi al-makhzuumi, wuxuuna ilaahay ka siiyey ubad, waxayna u dhashay wiil lagu magacaabo cabdilcuza iyo gabar magaceeda lagu magacaabo hinda. khadiijo guurkeedii labaad wuxuu ahaa nin ka soo jeeday reer bani tamiim, magaciisana lagu magacaabo hindi ibni zuraara, waxayna u dhashay wiil lagu magacaabo daahir iyo 2 gabdhood oo lagu magacaabo hinda iyo haala. wuxuuna ka dhintay ayadoo 25 sano jirto. khadiijo allah ka raali noqdee labadii nin ee nebiga ka horreysay ee soo guursatayba way ka dhinteen. guurkii nebiga uu guursaday khadiija waxaa ka soo hormaray dhacdooyin taasoo sabab u noqotay guurka nebiga iyo khadiija. halka ay ahayd ummuna khadiija haweenay leh xoolo badan, waxayna lahayd ganacsiyo kala duwan. tolkeedana waxay ku yaqaaneen go'aan iyo aqli iyo guusha ay ka gaartay ganacsiyadeeda. sidaas darteed guurkeeda dad badan ayaa ku hamin jiray. khadiijo allah ka raali noqday waxay ahayd mid ragga u dhiibta xoolaheeda si ay ganacsi ugu sameeyaan, waxayna ka dalbatay nebiga inuu ganacsi ugu sameeyo hantideeda. nebigana sallallahu calayhi wasallam wuu ka oggolaaday. fursadda waxay u oggolaatay adeegihii khadiijo oo lagu magacaabi jiray maysara inuu arko mucjisooyinkii iyo shakhsiyaddii nebiga inta lagu guda jiray safarkoodii ganacsi ay ugu socdeen shaam. maysara wuxuu arkay 2 malag oo hoosinaya nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee, waxayna hoosinayeen hadday qorraxda zaa'id noqoto kuleelkeeda. markay safarka ka soo laabteen nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo maysara wuxuu u sheegay khadiija wax walba uu ku soo arkay safarkii uu u raacay nebiga iyo wax walba uu maqlay iyo dhacdooyinkii uu nebiga kala kulmay. ka shaqayntii uu nebiga ka shaqaynayay xoolaha khadiija waxay sabab u noqotay
in Khadiija maalkeedii batay faa'iidadiina ay labalaabmatay. Khadiija radiyallahu canha waxay la yaabtay shakhsiyadda nebiga, waxayna jeclaysatay inay guur u soo bandhigato. waxayna u dirtay saaxiibteed lagu magacaabi jiray Nafiisata bintu Manya si ay nebiga ugu sheegto arrinka Khadiija oo ah guurka. Nebiga sallallahu calayhi wasallam Khadiija wuu ka ogolaaday guurka, wuxuuna ahaay guurkooda ka hor inta uusan waxyiga bilaaban iyo waxyiga kadib. Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu jiray markaas 25 sano, Khadiijana waxay jirtay 40 sano. Nebiga iyo Khadiija waxay isqabeen 25 sano. Khadiija waxay ahayd xaaskii ugu waqti dheeraa ee nebiga la nooleed sallallahu calayhi wasallam. Nebiga Khadiija lama uusan guursan ilaa ay dhimatay, waxayna kaga socneed xaasaska kale oo nebiga inuu Allah ka siiyay ilmo, waxayna u dhashay Qaasim, Cabdullaahi, Zaynab, Ruqiyah, Kalthum iyo Faaduma. Markii laga reebo wiilkiisa Ibraahim oo u dhashay Maariyatil Qudbiyah. Khadiija waxay ahayd radiyallahu canha nimcooyinka uu Ilaahay siiyay nebiga sallallahu calayhi wasallam. Waxay dhiirigelisay waqtiyadii adkaay ee soo maray nebiga, waxayna ku kaalmaysay diinta inuu dadka gaarsiiyo, waxayna ooga dardaarantay nafteeda iyo maalkeeda intaba. Ilaa laga gaaray waqtigii dhimashada Khadiija. Khadiija waxay dhimatay sanadkii 10aad ee soo dirista nebiga ama beectada. Allah ka raali noqdee. Nebiga sallallahu calayhi wasallam aad ayuu ooga murgay dhimashada Khadiija. Nabigeena Muhammad mar walba aad ayuu u amaani jiray Khadiija si uusan dadka kale u amaanin weligiis. Ilaa heer ay Caaisha tiri nebiga guriga kama bixi jirin ilaa uu Khadiija sheego. aad ayuu nebiga u amaani jiray Khadiija. Caaisha radiyallahu canha waxay tiri maalin maalmaha ka mid ah ayuu nebiga sheegay Khadiija radiyallahu canha. Caaisha radiyallahu canha waxay tiri waan maseeray, waxaana ku iri nebiga waxay ahayd duq, Ilaahayna wuxuu kuugu bedelay wax ka khayr badan, oo ula jeedo waxa ka khayr badan Khadiija inay tahay Caaisha. Nebiga wuu xanaaqay wuxuuna yidhi maya wallaahi, Ilaahay iiguma bedelin wax ka khayr badan. Waxay i rumaysay markay dadka i beeniyeen, waxay iiga dardaarantay xoolaheeda markay dadka xoolaha ii diideen, waana xaaska kaliya uu Ilaahay ilmaha iga siiyay. Intaa kadib Caaisha waxay tiri waxaan ku iri naftayda mar damba kama sheegi doono Khadiija wax caay ah. Khadiija radiyallahu canha wuxuu Allah ku koobay wanaag u gaar ah oo ka soo muuqday adduun iyo aakhiraba. Waxaana ka mid ah wanaagaas waa qofkii ugu horeeyay ee rumeeyay dacwada Islaamka. Ma jirin qof ka hor qaatay diinta oo sharaftaas ayada ayay gooni u ahayd. Waxayna ahayd qofkii ugu horeeyay ee maqlay Quraanka kadib markii uu ku soo degay Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ayaa Jibriil u soo diray Nabiga si uu uga gaarsiiyo salaan Khadiija, uguna bishaareeyo guriga jannada inuu ugu yaalo. Nabiga sallallahu calayhi wasallam aad ayuu u jeclay Khadiija, wuxuuna dhihi jiray Allah ayaa igu beeray jaceylkeeda. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu sheegay in Khadiija radiyallahu canha inay tahay midda ugu khayrka badan haweenka jannada. Wuxuuna yiri nabiga afdalu nisaa'i ahli aljanna Khadiijata bintu Khuwaylid wa Faadimah bintu Muhammad wa Aasiya bintu Muzaahim imra'ata Fir'aun. Nabiga wuxuu yiri haweenka ahlu jannaha waxa ugu fadli badan Khadiija bintu Khuwaylid oo ahayd xaaskii Nabiga, Faadimatu bintu Muhammad oo ah gabadhi Nabiga, iyo Aasiya oo ahayd xaaskii Fir'aun.
khadiija radiyallahu canha bishaare ayay u tahay gelitaanka jannada, waxayna muujinaysaa siday ooga soocan tahay haweenka kale oo ay oga fadli badan tahay Allah agtiisa. Allah ka raali noqdo ummul mu'miniin Khadiija bintu Khuwaylid, Allahana barakeeyo. Nabigeena Maxamedna Allah barakeeyo iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisa dhamaantood. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaashayda ku xiran janaalkayga Qurux Dumar Channel, haddaad ka heshaan fiidiyowgan ha ka iloobin like inaad saartaan, share garay oo la wadaag asxaabta.